sir aadan weligaaga maqlin oona lagu sheegin aniga ayaan kuu sheegi doono sharaxa $1 astaamihiisa iyo qoraalada ku qoran iyo sirta ku dambaysa waxay tahay markuu ugu horreysay tahay subscribe saar sida u faa'iidid muuqaalada yuhuudda waa 12 raas sida quraanku uu sheegay waxa jiro qolo kale oo yuhuudooday 13 ay soo noqdeen 13 raas waa yuhuudda hadda jirto ma aan yuhuudda saxda ah waa yuhuudda hadda jirto yuhuudda ashkinaash waa raaskii 13aad sida ay ka sheegteen laakiin quraanka waxa lagu sheegay 12 raas inay yihiin sidoo kale waxaad maskaxda ku haysaa tirada 13aad saddex geeska iyo isha qaybta hoostiisa waxa ku qoran aynoto optic waxaana laga wadaa ilaahaygiina uu ku faraxsan yahay mashruucan bilaabnay gabagabo ayuu yahay ama waxa la dhihi karaa ilaahaygiina uu inoo barakeeyay bilowgaan bilaabnay ama waxa la dhihi karaa hawshan bilowga ay ku dhowdahay saddex geeska wuxuu ka weyn yahay 13 lakab oo isa saaran 13 lakab isa saaran waa 13da raas ee reer bani Israa'iil ayaa laga wadaa qaybta kale oo isha qaybta kor ka saaran waxa laga wadaa isha masiixu dajaal ama ilaahayooda masiixu dajaal cabarka ahay qaybta hoose oo saddex geeska waxa ku qoran MDCCLXXVI qoraalkaas hoos ku qoran marka Roman numbers loo bedelo waxay noqonayaan 1776 waana maalintii la dejiyay New World Order ama nidaamka cusub ee caalamka nidaamul jadiidi markaas leegna xog suwiran galeerka gacanta wuxuu ku wadaa 13 fiyoore gacanta kale wuxuu ku wadaa 13 falaar korkiis ma xog sirtay 13 xidig markaas fiican dhanka kale salfeerna waa calanka yuhuudda 13 xidig waa calanka yuhuudda macnaheeduna waxay tahay anaka ayaan u talino Mareykanka maxaa laga wadaa gorgorkaas ama galeerkaas meesha ku suwiran labada gacan ay u jeedin oo galeerka waa siyaasiyiinta iyo madaxda Mareykanka gacanta kalena waa shacabka Mareykanka guud ee labada gacan marka ku sheego waxa laga wadaa gacanta falaarta hadii Mareykanka oo laga hormaado cid ka hormaado dagaal iyo burbur ay kulmaysaa cidii u hugato jilbaha ka qabsato amarkooda ay qaataan barwaaqo ay galayaan labada looga dhaxdooda maxaa ku qoran in God we trust macnaha ilaah baan aaminsanahay maan ilaahayga weyn subxaanahu wa ta'ala maan waa dijaal ilaahaygoda intaas waa qayb kamid ah calaamadaha ama sharaxa doolarka qayb kale ayaa inoo harsan ku ilaw maan